اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalada muslimiinta meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii maxay ku islaameen. barnaamijkana maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa qisadii ugu cajiibsanayd uguna yaabka badanayd. qisadanna waxay ku saabsiisan tahay nin fanaan ahaa ama heesa ahaa oo u dhashay dalka Spain oo Spanish ahaa oo kuna islaamay heesaha. waa cajiib iyo yaabkeed oo heesahan ama lagu islaami karaa. walaalayaal, qisadan marka ay inoo dhammaato waxa aynu insha allahu tacaala dareemi doonaa oo aynu dhammaanteen wada ogaan doonaa hadiyadii ugu weyneyd adduunka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu si sahlan oo fudud inagu deeqay. hadiyadaasina waa hadiyadda islaamka. walaalayaal, qisadani la wadaaga oo dhegihiina markaana amaahiya muddo yaroo kooban. qisadan waxay ku saabsiisan tahay walaalayaal ninka reer Spain ee magaciisa la dhaho markaa Romero Roman. ninkan wuxuu ahaa nin fanaan ah oo ku takhasusay heesaha loo yaqaano classic musicada. wuxuu ka gaadhay heer aad u sarreysa. wuxuu helay shahaadada doctorada ah oo isagoo takhasuskiisuna uu yahay heesaha classicada. kadibna wuxuu noqday professor ama ustaad ama macallin jaamacadeed. ninkaasi haddaba wuxuu doonay in uu baadho heesahan uu ku takhasusay ee loo yaqaano classic musicadu asal ahaan meesha ay ka soo jeedaan. dabcan reer galbeed ayaa sheegan jiray oo dhihi jiray heesaha classicadu waxay ka soo jeedaan dadkii reer galbeedka ahaa, ama Greek ha ku sheegaan ama Roman ha ku sheegaan. laakiin ninkaas ayaa cilmi baadhis sameeyey iyo buxuusaad iyo markaa baadhis uu ku samaynayay diraasad. wuxuu markaa baadhay raadadkii iyo aahaartii laga soo gaadhay dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaan jiray dalka Spain ee dowladdii Andalusiyiinta. kutubo badan ayuu helay. kadibna wuxuu ogaaday in heesaha classicadu ay asal ahaan ay ka soo jeedaan nashiidooyinkii ay qaadi jireen muslimiintii ku noolayd dalka Spain. nashiidooyinkaas oo macno aad u weyn xambaarsanaa oo lagu ammaani jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala, laguna ammaani jiray nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam. sidoo kalena lagu qeexi jiray sifooyinka ilaahay, waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa. walaalayaal, ninkii Romero Roman la odhan jiray saameyn weyn bay ku samaysay nashiidooyinka uu akhrinayo, waxayna qalbigiisa ku riday in uu soo islaamo. walaalayaal, sida aynu ognahay dalka Spain ama Isbaanishku waa dal Kristan ah intooda badani haystana madhabka loo yaqaano Catholiga. Catholicaduna waxay rumaysan yihiin saddexoolaha ama Trinity-ga ama taaluudka, ilaaha saddexoolaha ah ee ay sheegaan inuu hal isku noqday. subxaanallah, ilaahay baynu ka magan galnaye. kolka walaalayaal, nin bii'ada iyo deegaanka ku soo koray ayuu ahaa. isaga shakhsiyan markii horeba kumuu qanacsanayn diintan markaa taaluudka ama ilaaha saddexoolaha ah, oo wuxuu noqday markaa atheist ama qof markaa ilaahay dafira ama jiritaanka ilaahayba diidan. laakiin markii uu akhristay nashiidooyinkan iyo markaa waxdaaniyadda ilaahay subxaanahu wa tacaala, sida ilaahay uu kelida u yahay iyo sifooyinka wanaagsan, ayuu ka helay. aad baan u caashaqay, kalgacayl aad u xad dheerna uu u qaaday markaa ilaaha markaa kelida ah. waxaa kaloo bilaabay inuu baadho taariikhdii iyo siiradii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam. wuxuuna ogaaday halgankii dheeraa ee uu soo galay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ee aanu marnaba mowqifkiisu iska bedelayn oo caqiidadiisu marnaba aanay isbedelaynin xaalad kasta iyo duruuf kasta uu ku jiro sallallahu calayhi wasallam. halkaana wuxuu ku jeclaaday nebiga xabiibka ah ee Muhammad sallallahu calayhi wasallam. ninka markaa qalbigiisa ayuu ka islaamay ama uu ilaahay kelinimadiisa uu ka qirtay. sidoo kale walaalayaal, ninkaasi wuxuu deganaa magaalada la yidhaahdo Qarnata ama Granada loo yaqaano, oo ka mid ahayd magaalooyinkii waaweynaa ee dowladdii Andalus. magaalada uu deganaa waxaa ku yaalay masaajid dad muslimiina ay lahaayeen.
kolkaas salaada subax iyo salaadaha badankooda qur'aan ayaa lagu akhriyi jiray. marka salaada subax marka ay gaadho ayaan soo kici jiray buu yidhi Romero Roman. markaan soo kaco sababtan u soo kacay maaha inaan salaad tukado ama aan muslimiinta kala qayb galo salaadooda iyo marka cibaadada ay ku guda jiraan ee kaliya waxaan anigu u soo kici jiray subaxaas in aan dhegaysto qur'aanka lagu akhrinayo marka masaajidka. wuxuu dhahay qur'aankaas ayaan ka helay maadaama isagu uu ahaa nin fanaan ah, gaar ahaanna uu yahay nin doctor ama professor ah. wuxuu aad u garanayay oo uu qiimeyn karayay waxa loo yaqaano luuqda iyo laxanka iyo dhawaaqa bani aadamka. wuxuu aad u jeclaaday markaa qur'aanka kariimka luuqdiisa iyo laxankiisa iyo dhawaaqiisa. wuxuu soo iibsaday markaa album way ku duuban tahay cajilado uu duubay markaa qaarigii weynaa ee Sheikh Cabdilbaasid Cabdussamad rahimahullahu rahmatan waasi'a. Cabdilbaasidna walaalayaal waxaan naqaanaa inuu ka mid yahay qurra'da waaweyn ee caalamka islaamka. marka walaalayaal Cabdilbaasid ayuu dhageystay. wuxuu dhahay markii aan dhageystay qur'aanka kariimka bisawti يعني codkay Cabdilbaasid aan ku dhageystay wax khalal ah ama wax gef ah ama qalad ah oo ku saabsiisan musicadiisa maan helin buu yidhi. طبعا musicada uga jeeda isagu waxa weeye waa laxanka iyo luuqda iyo dhawaaqa qur'aanka qaabka loogu dhawaaqayo iyo codka macaan. wax qalad ah ama khalal ah kamaan helin buu yidhi. aad baan u sii jeclaaday buu yidhi marka qur'aanka kariimka. dabadeedna walaalayaal waxaa ii yimi buu yidhi niman dhalinyaro ah oo ka yimi dalka Maghrib ama Morocco. nimanka dhalinyarada ahi waxay hayeen niman muslimiina, laakiin waxay doonayeen inay igu macsuumaan xaflad ka dhacaysay dalka Maghrib ama Morocco ka dhacaysay oo lagaga hadlayay oo lagu falanqeynayay nashiidooyinkii qadiimiga ahaa ama si kale hadaynu dhigno classicadii qadiimiga ahayd sidoo isagu u dhigay markaa hadalka. kadibna walaalayaal waan israacnay buu yidhi waxaan tagnay dalka Morocco. markaan dalkii Morocco tagnay waxaan si khaas ahana waxaan tagnay buu yidhi magaalada la yiraahdo Tatouan. magaalada markaan tagnay ayaa dhalinyaradii waxay galeen meel masaajid ah. salaadii ayay doonayeen inay oogaan oo ay tukadaan. aniguna wuxuu yidhi maadaama aanan muslim ahayn masaajidka banaankiisa ayaan iska istaagay anoo halkaa ku dul wareegaya masaajidka oo sugaya markaan nimankii dhalinyarada ahaa. subxaanallah, haddaba cajiibka dhacday iyo sheekada dhacday waxay ahayd salaadii markii la galay ayaa salaada waxaa tujinayay dadka muslimiinta ahaa nin markaa oday ahaa waayeela sheekh weyn oo ahaa markaa imaamkii masaajidka tujinayay. sheekhaas haddaba wadaadka ahaa ee waayeelka ahaa ayaa wuxuu akhriyay aayad qur'aan. aayadihii qur'aanka ahaabaa saameyn weyn bay ku yeesheen ninkii Romero Roman loo odhan jiray. wejigiisii baa isbedelay, indhihiisii baa markaa ilma ay ka buuxsantay, wuu ooyey, gebigiisiibaa si kale ayuu noqday. qur'aankii buu dhegaystay. dabadeedna dhalinyaradii baa salaadii ka soo baxay. waxay ku soo laabteen ninkii Romero Roman oo markaa wejigiisu isbedelsan yahay oo qaab kale uu yahay gebigiisuba. way la hadleen, waxay ku dhaheen maxaa dhacay. waxay u maleeyeen in ehelkiisii ama faamilkiisii ay ku timi shil ama dhib ay soo gaadhay. wuxuu dhahay Romero Roman waan hadli kari waayey, gebigayguba waxaan ahaa maqane jooga ah. kadibna waxaan idhi waxaan doonayaa inaan ku laabto magaaladii aan ka imi ee Granada la odhan jiray. waxay dhaheen maxaa dhacay. wuxuu yidhi cidna warbumaan sheegin, waxaan doonayaa inaan ku laabto iminka magaaladii Granada. waxay ku dhaheen sunnagii xafladda inaan ka qayb galno aynu nimi. wuxuu yidhi maya, Granada ayaan doonayaa. gaadhigii baan raacnay, safar baan galnay, sidaasaan ku tegay buu yidhi magaaladeydii aan u dhashay Granada. wuxuu dhahay xaafadaydii ama gurigaygii baan galay, carruurtaydii baan hadiyadii aan u siday baan siiyey. kadibna musqushaan galo, waan qubaystay, waan soo baxay, waxaan imi buu yidhi goob masaajid ah, meel masaajid ah baan soo galay. markaa muslimiintii way i yaqaanaan oo masaajidka xaafadayda agteeda ayuu ku yaalaa. kolkaa markii ay arkeen waxay ii moodayeen inaan soo booqday waxaan idhi waxaan doonayaa inaan salaada tukado. waxay dhaheen oo miyaad islaamtay? maya baan ku idhi buu yidhi. dabadeedna walaalayaal ninkii waxay ku dhaheen muslimiintii shahaadada waa in lagu qabtaa. shahaadadii baa loo qabtay, kelimadii tawxiidka ahayd. sidaas baanu ku islaamay. kadibna wuxuu bartay qaabka loo tukanayo salaada. ninkii Romero Roman wuxuu noqday nin muslima. magaciisana wuxuu la baxay Cabdussamad, isagoo ku dayanaya markaa magacii Sheikh Cabdilbaasid Cabdussamad rahimahullah.
walaalayaal maadaama uu ahaa nin caana oo maalqabeenna ah fanaanna uu ahaa heer sarena uu ka gaadhay heesaha iyo fanaannimada waxaa markiiba weerar ku soo qaaday saxafiyiintii iyo joornaalistayaashii oo meel walba ku qoray dacaayadiisa dhaleecayntiisa iyo caydiisaba waxaa maqlay markaa ninkaasi inuu islaamay safiirkii u fadhiyey dalka Spain Saudi Arabia safiirkii baa markaa warqad u soo diray wuxuu ku yidhahay waxaan kugu macsuumaynaa inaad tagtid adiga iyo haweeneydaduba magaalada barakaysan ee xurmaysan ee Makkah al-Mukarrama dabcan walaalayaal waan idin soo hadal dhaafay ninka Romero Roman haweeneydiisii ama xaaskiisii uu qabay ayada laftigeeduna way islaamtay alxamdulillah kolka way israaceen waxay tageen magaalada barakaysan ee Makkah xajkii ama umradii bay guteen wuxuuna si fursad ah ama chance ah uu u helay boqorkii Malik Fahad ibn Abdul Aziz ee boqorkii Saudi Arabia oo jooga meesha Mina loo yaqaano halka magaalada Mina ayay ku kulmeen dabadeedna boqorkii ayaa la hadlay ninkii loo oran jiray Abdusamad Romero Roman wuxuu ku dhahay boqor Fahad Abdusamad maxaad u baahan tahay ama maxay u baahan yihiin dadka reer Andalusiyiinta ah ee muslimiinta ku nool dalka Spain maxay baahi u baahan yihiin walaalayaal waxaad qiyaastaan ninkaas iminka wuxuu dul taagan yahay nin boqora oo xoolo haysta wuxuu weydiisan karayaa markaa xoolo iyo lacag iyo maal fara badan ama wixii kale uu u baahan yahay laakiin bal u fiirsada jawaabtii uu bixiyay Abdusamad Romero Roman wuxuu dhahay waxaan kaliya oo aan u baahanahay buu yidhi in aad igu dartaan madrasad ama jaamacad ku taala dalka Sacuudiga si aan u barto luqadda afka Carabiga iyo waliba diinta Islaamka si aan u fahmo buu yidhi Qur'aanka Kariimka dabadeedna boqorkiiba wuxuu siiyey minxo ama waxbarasho bilaash ah ayuu ka siiyey magaalada Makkah kadibna waxaa aqbashay jaamacad ku taala magaalada Makkah al-Mukarrama jaamacad al-Qura ayaa markaa aqbashay sidaas baana ku galay isaga iyo haweeneydiisii waxayna u soo guureen Abdusamad Romero Roman iyo haweeneydiisii reerkiisuba magaalada Makkah halka wuxuu deganaa markaa magaalada Makkah muddo gaadhaysa 12 sanadood wuxuuna bartay luqadda afka Carabiga wuxuuna shahaadada masterta ka qaatay diraasaadka Islaamka halka haweeneydiisuna iyaduna ka qaadatay shahaadada masterka tarbiyadda Islaamka subhanallah ilmahoodii oo yarna wuxuu bartay oo xifdiyay kitaabka weyn ee Qur'aanka Kariimka markii haddaba iskuulkii ama jaamacadii ay u dhamaatay ayaa ninkii loo oran jiray markaa Abdusamad Romero Roman wuxuu ku soo laabtay magaaladii asal ahaan uu ka yimid Granada halka markuu yimi wuxuu furay masaajid weyn wuxuu dhisay dugsi hoose dugsi sare ilaa dugsi dhexe iyo dugsi sareba oo lagu baranayo markaa diinta Islaamka iyo sidoo kalena kulliyad lagu baranayo diraasaadka Islaamka oo heer jaamacadeed subhanallah intaasoo kaliya ninkii Abdusamad Romero Roman kuma ekaanine wuxuu furay idaacad islaamiya oo lagu faafinayo diinta Islaamka waxa kale oo uu furay website caan ah oo lagu faafinayo sidoo kale diinta Islaamka isaguna shakhsiyan waxa iminka weeye nin daaciya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jidkiisa ugu yeedha dadka walaalayaal sheekadii markaa Abdusamad Romero Roman wali may dhamaanin Abdusamad Romero Roman wuxuu ku laabtay magaalada ama boqortooyada Sacuudiga kadibna walaalayaal wuxuu la kulmay Dr. Zaghlul al-Najjar Dr. Zaghlul al-Najjarna walaalayaal hadda taqaanaan waa caalim weyn iyo aqoonyahan weyn oo kamid ah culimada waaweyn ee kamidka culimada Islaamka kana soo jeeda dalka Masar dabadeedna walaalayaal maadaama uu la kulmay Dr. Zaghlul al-Najjar waxa loo sheegay ninkii loo jiray Abdusamad Romero Roman in uu imanayo boqorkii iyo boqoradii dalka Spain ay imanayaan wadanka Sacuudiga gaar ahaan caasimadda Riyadh kolkii ay yimaadeen boqorkii iyo boqoradii dalka Spain ayuu markaa la kulmay Abdusamad boqorkii iyo boqoradii kula kulmay magaalada Riyadh sidaas baan ku gaarsiiyay dacwadii iyo faafintii diinta Islaamka walaalayaal haddaba waxa cajiib ah markii uu soo laabtay ninkii loo oran jiray Abdusamad Romero Roman ayaa waxa la kulmay nin kale oo Spanish ah ninkan kale Spanishka ah wuxuu leeyahay qisadii ugu cajiibsanayd uguna yaabka badanayd kana ilmaysiin doonta qalbigaagana jilcin doonta ninkan waxa la oran jiray Dr. Condi
walaalayaal wuxuu ahaa nin Spanish nin dhakhtar buu ahaa oo doctora kana shaqayn jiray cusbitaalka marka uu islaamay sababta uu ku islaamay hadhow baan idin sheegi doonaa insha Allah taala marka wuxuu u yimi Abdul Basit ama Abdisamed Romero Roman buu u yimi oo ah nacaan ah oo dalka Spain ka caan ah ayuu u yimi oo wuxuu ku dhahay waxaan doonayaa inaan aado magaalada barakaysan ee xurmaysan ee Makkah al-Mukarrama si aan u soo guto xajka ama umrada tabadeedna walaalayaal waxa la yiri waa inaad fiisa ama dalku gal aad ka haysataa safaaradda dalka Sacuudiga uu ku leeyahay Spanish ama Spain safaaradii markii uu tagay waa loo diiday sababtoo ah islaamnimadiisa ayaa cusbayd dabadeedna Cabdisamed baa wuxuu ku dhahay ninkii la oran jiray Dr. Condi anigu waxaan si shakhsiyan aan u aqaanaa dad madax sare ah oo ka shaqeeya ama jooga boqortooyada Saudi Arabia dadkii buu la hadlay dadana waxaa loo fudeydiyay in uu booqdo markaa magaalada xurmaysan ee Makkah al-Mukarram walaalayaal markii hadaba magaaladii Makkah uu tagay isaga iyo Abdisamed Romero Roman uu xajkii ninkii uu soo dhamaystay ayaa waxay hadana la kulmeen Dr. Zaghlul al-Najjar xafidahullah Dr. Zaghlul al-Najjar ayaa markaa wuxuu doonayay in uu ka waraysto warkii dhex maray Abdisamed Romero Roman iyo boqorkii boqoradii reer Spain buu doonayay inuu ka waraysto kolka markii ay soo galeen ayaa wuxuu arkay isaga oo wada ninka la dhahdo Dr. Condi ninkan Dr. Condi markii ay saarkeen Dr. Zaghlul al-Najjar wuu oynayaa Dr. Condi wuu oynayaa wuu ilmaynayaa wuu oynayaa waa la yaabay waxa la yiri maxaa dhacay maxad la oynaysaa Dr. Condi wuxuu leeyahay muslimiinay maxaad nooga tagteen carabay maxaad nooga tagteen maxaa uga baxdeen dalka Spain maxaa uga tagteen dawladda Andalus maxaa iskaga celin weydeen nimankii gaalada ahaa ama kufaartii kristaanka ahayd ee awood ku qabsatay dalka Spain waa la yaabay maxaa dhacay buu yiri wuxuu yiri ninkii hadaba Dr. Condi anigu waxaan ahaan jiray asal ahaan waxaan ka soo jeedaa dadkii muslimiinta ahaa ee u dhashay buu yiri dalka Andalusiyiintii lagu kristaanaysiiyay ama qasab la gaalka lagaga dhigay kristaanka lagaga dhigay seefta madaxa lagaga qabtay ayaan asal ahaan qoyskaygu ay ka soo jeedaan buu yiri wuxuu dhahay Dr. Condigan waxa la oran jiray buu yiri aniga Kindi qabiilkayga Kindi baa la yiraahdaa maaha Condi markii dambe ayaan la baxnay laakiin Kindi baa la oran jiray dad Carbeed oo asal ahaan ka soo jeeda dawladii Andalusiyiinta ayaanu ahayn oo qasab lagu kristaanaysiiyay wuxuu dhahay dadkii markaa qasabka lagu kristaanaysiinayay dad badan oo kamid ah islaamnimadooda way qarsadeen ilaa iyo haddana dad badan oo islaamnimadooda qarsada ayaa waxay ku nool yihiin dalka Spain xitaa wuxuu sheegay in ayeydii ay ahayd muslimad subhanallah ninkaas hadaba qiso cajiib buu leeyahay waxa lagu yiri maxaad ku islaamtay wuxuu dhahay waxaan ku islaamay buu yiri waxaan ahaa nin dhakhtar waxaan haystay meel cusbitaal ayaan ka shaqayn jiray waxaan lahaa buu yiri inan gabadh kaliya ayaan dhalay inan taayirna inan yar oo xariifada bay ahayd oo ku fiican xagga diraasadda iyo waxbarashada ayay ahayd buu yiri hooyadeedna markii iyadoo yar ayay dhimatay kadibna gabadh kale ayaan guursaday buu yiri gabadha yar waxay ahayd gabadh dib yar oo aan dib badan anigu haynin buu yiri dabadeedna waxaan doonay buu yiri inay gabadhaydaas ama inantayda yari ay noqoto hadhow toole gabadh dhakhtarada si ay garabkayga midig uga shaqayso ina caawiso ina kaalmayso markay weynaato dabadeedna walaalayaal waxbayaan sheekay idinku daalinayna gabadhii way kortay waxaanan kula taliyay buu yiri in ay dhibco fiican ay ka haysato dugsiga sare si ay kulliyadda caafimaadka u gasho gabadhii way dadaashay dhibco fiican bay keentay waxaana la ogolaaday in ay gasho kulliyadda caafimaadka si ay u barato markaa medicinka ama medicalka ama caafimaadka walaalayaal hadaba wuxuu dhahay waxaan hadiyad ahaan u siiyay markii la ogolaaday gaari cusub oo kamid ah baabuurtii ugu quruxda badanayd ee markaa laga watay dalka Spain walaalayaal wuxuu dhahay ninkii gabadhaydii ama inantaydii yarayd oo markaa aan ku faraxsanahay heerka ay marayso iyo dadaalkeeda ayaa shil baabuur bay gashay dabadeedna way dhimatay subhanallah waxa halka iga soo gaaray buu yiri Dr. Condi muruga fara badan iyo walbahaar aad u fara badan baa ay asiibay buu yiri gabadhii kaliya ama inantii kaliya aan lahaa ayaa dhimatay oo geeriyootay dabadeedna wuxuu dhahay habeen kasta markaan seexdo waxaan riyada ku arkaa inantaydii
oo hadallo gariib ah ama hadallo aanan garanayn igula hadlaysa. riyadii baa igu soo noqotay, igu soo laablaabatay, waan yaabay. inantaydu waxay leedahay habeen kasta markay riyada igu aragto, aabow baadil baad ku sugan tahay, aabow baadil baad ku sugan tahay, aabow waxaad raacdaa diinta waxdaaniyadda, aabow waxaad raacdaa diinta ilaahay keli yeelaysa, aabow waxaad raacdaa diinta dadka dhulka ku socda qaab aan kibir ahayn ugu socda, iyagoo markaa dabacsan soconaya dhulka waan kibirsanayn. waan yaabay buu yidhi. riyadaasi way igu soo noqnoqotay, way igu soo laablaabatay. subxaan allah. wuxuu dhahay haddana waxaan dib u baadhay, bal hadda inantaydii kutubteedii iyo waxyaalaheedii iyo alaabteedii baan baadhay. wuxuu dhahay markii aan baadhay ee aan dib u ogaaday ayaa waxaa lay sheegay inay inantaydu islaamtay. laa ilaaha ila allah. inantaydu way islaamtay buu yidhi. dabadeedna way iga qarisay cabsi ay iga qabta aniga. dabadeedna waxay gashay shil baabuur. ilaahay ha u naxariista marka inantaas. walaalayaal wuxuu dhahay waxaan kaloo haddana riyada ku arkay riyo kale oo cajiiba. waxaan arkay buu yidhi dhagax madow, meel dhagaxba madow oo dad ay ku dul dawaafayaan, dad baa ku dul wareegaya. marka wuxuu dhahay kutubtii markaan baadhiyay inantayda waxaan ka helay sawir dhagax madow iyo dad markaa maryo cadcad sito oo ku dul dawaafaya. waxaan idhi ilaah baan ku dhaartee inantaydii islaam bay ahayd oo muslimad bay ahayd. subxaan allah. wuxuu dhahay haddaba waxaan u imi si aan u islaamo cabdisamed romero roman. wuuna islaamay. dabadeedna waa kii loo diiday aan idin sheegayay in uu tago boqortooyada sacuudiga maadaama islaamnimadiisu ay dhoweyd. ninkii haddaba sida aan idin sheegay cabdisamed baa u fudeydiyey oo niman kale la hadlay oo sacuudiga jooga. dabadeedna sidaas ayuu wuxuu ku yimi magaalada barakaysan ee xurmaysan makatal mukarram. kolkuu markaa walaalayaal magaalada maka uu soo galay ee uu kacbadii uu arkay ayaa ninkii oohin buu bilaabay, waanu suuxay. subxaan allah. ninkii waa la qaaday cusbitaalka ayaa la geeyey. markii cusbitaalka la geeyey baa la waraystay. waxaa la yidhi maxaa dhacay doctor Kondiyo, maxaa dhacay? wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartee sawirkii aan ku arki jiray riyada ee kacbadii iyo dhagaxii madooba iyo dadkii dul wareegaya kan uu ahaa. sawirkii xitaa aan buugga inantayda ku arkay muu ahayn sawirkii aan بالضبط يعني exactly aan ku arkay riyada wuxuu ahaa kan aan imika arkayo iyo kacbada iyo dadkii dawaafi. wuu oynaya marka wuxuu la kulmay saan idin sheegayba doctor Zaqlul an-Najjar. wuxuu leeyahay marka isagoo marka calaacalaya oo oynaya muslimiinay maxaa uga tagteen dalka Spain? muslimiinay waxaana ahayn anagu albaabkii laga geliyay qaaradda Yurub, waxaana ahayn meesha ay ka islaamayaan reer Yurubtu, maxaa u beerdaraysan islaamkiinii, maxaa uga tagteen? subxaanallah. wuxuu dhahay marka doctor Kondi حتى الآن ilaa iyo iminka waxaa jira dad badan oo muslimiina oo asal ahaan ka soo jeeda markaa dadkii andalusiyiinta ahaa ee u dhashay dalkay Andalus loo dhan jiray oo qolyo fara badan qasab iyo seef madaxa lagaga hayo oo lagu kiristaanaysiiyey, kuwa kalena ay xitaa la'aan ay qarsadaan islaamnimadooda. sidoo kale doctor Cabdisamed Romero Roman wuxuu dhahay dad fara badan oo muslimiin oo ilaa 2 milyan gaadhiya ayaa ku nool dalka Spain. laakiin waxaa ka tiro badan buu yidhi dad fara badan oo ah Spanish ama asal ahaan ka soo jeeda Andalusiyiinta oo islaamnimada qarsada ilaa iyo hadda. wuxuu dhahay waxaan ku garanaynaa in islaamnimada ay qarsadaan qaabka loo aaso dadka waxa weeye weli sidii islaamku ama muslimiintu ay u aasi jireen. wuxuu dhahay qabriga waa loo qodaa, qofkuna markuu dhinto waa la maydhaa oo waa la kafmaa, kadibna jiho aanan garanayn ama dadku aanay garanayn bay u aasaan buu yidhi. subxaanallah. wuxuu dhahay xataa al'aan magaalooyinkayaga waxaa yaala sijaayadihii lagu tukan jiray, waxaa yaala looxyadii iyo markaa farshaxankii dadkii muslimiinta, waxaa yaala xitaa iska dhaafee dacaskii iyo kabihii musqushi iyo suuliga lagu galayay, waxa yaala tasbiixdii iyo markaa tusbaxii ay muslimiintu ku tasbiixsan jireen. dadkuna ma garanayaan waxa loo adeegsanayo. subxaanallah. waa dawladdii burburtay ee markaa muslimiintu ay sida tamarta yar ay uga tageen, ee daciifnimada ay uga tageen. subxaanallah. haddii ay muslimiintaasi ay ku adkaan lahaayeen diintooda, jihaadkana ay iclaamin lahaayeen oo wax iska dhicin lahaayeen, maanta qayb badan oo ka mid ah qaaradda reer Yurubku waxay noqon lahaayeen dad muslimiina bay noqon lahaayeen. walaalayaal qisadan waxaan ka soo xigtay doctor Zaqlul an-Najjar rahimahullah xafidahullah baan leeyahay oo si toos ah uga waramay. sidoo kalena waxaan helay
muuqaal uu duubay sidoo kale cabdisamed romero roman oo ka sheekeynaya masaadirta iyo meeshan kasoo xigtayna waxaa ka heli doontaan insha allahu tacaala maqaalka aan ka qoray ee galdiid.com aa ka heli doontaan insha allahu tacaala. walaalayaal qisadan iyo qisooyinka kaloo dhanna waxa ay ina tusayaan oo markaa aynu ka qaadanaynaa qiimaha ilaahay uu ku yeelay adiga iyo aniga iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal uu inoogu nicmaystay oo inoo siiyey hadiyadda intaa la eg oo ah islaamnimada bilaashka ah. islaamnimada bilaashka ah ilaahayna siiyey miyay u baahan tahay markaa in aynu beer darayno ama si yar oo fudud aynu uga tagno? subxaanallah, nebigii haddaba sida inoogu soo halgamay ee ina soo gaadhsiiyey diinteenna ee ilaa iyo waxaasoo khayr ah inoo horseeday miyuu u qalmaa inaynu ka tagno diintiisa? waa maya. sala allahu calaa sayidina moxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaato xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam, isaga iyo saxaabadiisii, ehelkiisii iyo dhammaan muslimiinta raacday jidkiisii. hada wallahu aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu. allahuma ina nas'aluka biannaka anta allah لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد. أنت ربنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك. جمعتنا من غير ميعاد وأنت الرب الرحيم الرحيم